قبر يا سبحانه مرة شبه لحرته مرة خفيفة هوته مقعاقة إيشك مقعيق وشرف شرف حاجي ويان أقل هذا حريرته لنا بانك الجوغة الله يا أشيغة تنت أشان ليا نهوي سمسمي صباح نوري هذو كلكليو كلهم بدني هذو حاج كجيرة حسوس بدني صاحبتا عشق بادبيلي وقدام بيستنا أنا يقيلوبا وقوبنا مليا نهوي سمسمي markaan yaray waxaan ka fikri jiray anigoo noqday waxaan rajayn jiray inaan noqdo madaxweynaha Soomaaliya ma dhima doontaa ma noolaan doontaa inta waa ku fikiraa nolosheeda liibi waxaa ka dhacay dhibaata ka dhacday waxaa soo gashay ayagii waxaa isdagaaleen naata isdagaaleen kabacdi markuu ka carashada badatay booliiska wuxuu bilaabay waxyaabo dil iyo dhac iyo waxyaabo bilaabay way garaaceen biray ugu dhufteen waxay ugu subiyeen isla markii waxaan galay isbitaal isla markii waxaan galay koomaan galay aniga meeshaan dhigi kala tageen تلفون يقول حري السؤال كم مدة جارس وحن كجري أنت اللي سعسين أنت وحلي برا أنت صوت بالشنات أيضا يصير ما نسوا عشوشة أي ماذا ما شان كجري شوشة ارتوى نور أضاق واي ونور اللي بهتبضن وأنا كسبنا بتا قحوتي ارترفجي أما قحوتي qofka aan lahayn wadan sida qofka wadankiisa dhib ka jiro hooyo way u welwelsan tahay xaaladeyda hooyo waxaan jeclaan inaan ku arko inaan soo wato aan geysto wadamada Yurub ka mid ah بدنا نبلش أول شيء بالوزن اللي مسموح فيه لكل شخص منكم كل شخص مسموح له 15 كيلو فقط شخص العائلة ممنوع يجمعوا markay baxaan saxaabtay waxaa dareemaa cidlo runtii bixitaankiisana waa ku farhay انتوا رح تطلعوا بجروب واحد تونس فرانكفورت اوسلو هارستاد نارفيك بكره الساعة 7 الصبح على 7 صباحا كلكم تتجمعوا على اليو ان اتش سي ار على المين جيت تطلعوا بالباص تروحوا على تونس saakan waxaa arkaya saaxiibkay oo shuusha dadkii ugu soo dhaweeyay ka mid ah oo qalbigii dejiyey markaas i waanan jiray aasaa ka baxay إن شاء الله مصابرك وأسوي من بشو إن شاء الله qodobada wararkaan idin ku hayana waxaa ka mid ah dagaallo culus oo muqdisho ku dhex maray ciidamada dowladda ku meel gaarka dalka Soomaaliya
iyo ururka al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof. dagaal wax shay yar maahan, shay sahlan maahan. dagaalku leeyahay hadda intaa ku arkay leeyahay ay ugu filan aniga markaan qurbaha imaada keliya intaa asaan arkay ay ugu filnaatay. Soomaaliya waxaa ugu soo cararay aan qabaa maanta ilaa hadda waa sakana aniga kuma laawi karo Soomaaliya. ay ka mid noqdaan kuwa AMISOM ee xilligan howlgallada ka wada dalka Soomaaliya. wasiirka arrimaha gudaha Somaliland ayaa markii ugu horeysay waxa uu la kulmay madax dhaqameedka gobolka Gabiley, waxaana inta badan kulankaasi oo madax kale ay ka qayb galeen looga hadlayay sidii gebi ahaanba looga hortagi lahaa xiisado ka dhasha dilkii ka dhacay deegaanka Samaal ee 3 qof lagu dilay. naafada ku dhaqan deegaanka Puntland oo in badan ay la soo gudboonaatay dhibaatooyin dhinaca nolosha ayaa iyana markii ugu horeysay waxa ay samaysteen dallad ay ku midaysan yihiin si ay ugu doodaan xuquuqdooda gaarka ah. xuska maalinta qowmiyadaha shucuubta dalka Ethiopia ayaa lagu qabtay magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka Soomaalida, iyadoo lagu soo bandhigay munaasabadaasi ciyaaraha kala duwan ee muujinaya isdhexgalka shucuubta kala duwan ee dalkaas. madaxweynaha waddanka Syria Bashar al-Assad ayaa iska fogeeyay in uu wax lug ah ku leeyahay dhowrka kun ee qof ee lagu dilay dalkaasi Syria 9 bilood ee kacdoonnada dhanka dadweynaha ay dalkaasi ka soconayeen.